بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاوذي الكسر وهذا برنامجكي شيكوينك أذير عجب وإنه كبر إني عرورتي أن أخلاق ذا وناكسن وحين جوجنا ما أنت مساجد كم المساجد إلهي سبحانه وتعالى وحنبرنا إن أخلاق ذي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي النبي صلى الله عليه وسلم صاري إنه أخلاق ذا لما يستره صوصات معها أخلاق ذا برنا إنه حكم ذا رنتا حكم ذا إن بلنت اللي أوفيه حكم ذا إن درس كل احترامه حكم ذا إن إيه إن ما ضدك عن العين حكم ذا إن بين الشيء حكم ذا إن قفكم إن احترامه قفك يركل لونه حريصته حكم ذا إن وضد قشن لغو توري محاكمة إن دقح لا تورين وحاس أخلاق داس دن بينو برانينا marka waxaynu baadi goobaynaa waa wiilkee iyo gabadhee ayaa lambar koow u noqon doona akhlaaqda sunnah Muhammad sallallahu alayhi wasallam lambar koow akhlaaqda ugu ahaa saas ma ahayn oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofkii akhlaaq yeesha jannadu geeyna qofkii akhlaaq yeesha tagaya jannada waxa jiray ninkaas muxuu sameyn jiray dukaan buu lahaa dukaan ayuu lahaa taajir buu ahaa cibaado badan ma sameyn jirin laakiin qofkii lacag yar ka dhiman tahay waayahay waa ka qaadan jiray ma dhihi jirin lacag baa ka dhiman oo rabax wax ku siin maayo qofkii lacag haysan deyn buu siin jiray dadka u shaqeeyay wuxuu ku dhihi jiray qofkii deynta iska bixin waaya oo lacag waaya hadhibinina iska daaya ninkii markuu dhintay Ilaahay buu u tagay markaasaa la xisaabay amalkiisii mise salaad badan wax badan ma sameeyo laakiin muxuu sameeyaa dadku caawiya qofkii lacag ka dhiman tahay ee ma dhibo qofkii deynta iska bixin waaya ee ma dhibo dadku caawiya masaakiinta ah uu cafin jiray dadku cafin jiray Ilaahay baa wuxuu yiri ana kaaga haboon dadka inaan cafiyo sadarta adna waa ku cafiyay dambigaaga jidhoon ka cafiyay jannadu galay jannadu muxuu ku galay inuu dadka cafin jiray oo caawin jiray sadarta marka maxaan u baahanahay sheekooyinkan ugu talagalnay inaynu noqono dhalinyaro akhlaaq wanaagsan si nabigoodii sallallahu alayhi wasallam ma fahanteen maanta marka qisooyinkan waxay ku saabsanaan doonaan dhaqan ama akhlaaq wanaagsan oo la dhaho alwafaa alwafaa suuratu insaan ilaahay muxuu ku yiri yuufuuna binnadri yuufuuna waxay oofiyaan nadarkii macna waa dadka ballanta ilaahay oofiya ballanta waalidka oofiya ballanta macalinka oofiya dadka wixii lagula ballamo oofiya ayaynu maanta ka sheekaynaynaa ma garateen iyo qofkii saas sameeyay wax fiican uu helayo waaba waxa jiri jiray marka adeer rayaal waaba waxa jiri jiray nin wanaagsan baa jiri jiray ninkaas wanaagsan maalmaha kamida marka ayuu safray magaaladu deganaa magaalo kale oo u dhow ayuu aaday wuxuu rabay inuu soo booqdo oo soo salaamo dad muslimiina oo saaxiibadiisa ila dirtii u jecel yahay ayuu magaalada u aaday inuu dadka soo booqdo saaxiibadiis inuu soo booqdo oo Ilaahay dartii u jecel yahay isagoo marka wadadii maraya ayuu wuxuu soo dhex maray qubuuru soo dhex maray meel qabriya ah dad lagu aasay markaasuu yiri alila qabrigan intaad gashid u ducay ilaa qubuura marka ag maraysid waa loo duceeyaa waxa la ilaahay u dambi dhaaf ilaa dadkan u naxariis waa loo duceeyaa marka ninkan qabuurtii uu ku leexday wuxuu damcay inuu u duceeyo ka baadi markuu galay wuxuu ku arkay qabuurtii arin cajiib uu ku arkay wuxuu arkay qabri uu ku qoran yahay qoraal baa ku qornaa waxa ku qornaa qabrigan waxa iska leh aygii ama kalbigii aygii halkan waa qabriga waxa iska leh ay waxa ku qoran meesha qabriga waxa iska leh ay wuxuna leeyahay aygani sheeko cajiib uu leeyahay qofkii raba sheekada inuu ogaado
tuulada ha aado waayo waxaa jooga cid sheekadan taqaanee ninkii intaa markuu akhriyey wuu yidhi walla sheekada inaad ogaataa fiican ilmiya ma ay baa la aasi jiray laakiin ay la aasu arkay oo misna maxaa lagu qoray aygani sheeko cajiib buu leeyahay qofka raba sheekada cajiibka inuu ogaado waa inuu tago tuuladaas qof yaqaanaa sheekada uga sheekaynaya haye waxa dhacday marka ninkii tuuladii buu aaday markuu tuuladii tagay ayuu weydiiyey wuxuu yidhi war aygii aan qabrigiisa soo arkay sheekadiisa ayaa yaqaan halay tilmaamo markaasa waxaa la yidhi odayga waa yeelka ee guriga halkaas ka soo jeeda degan baa yaqaana sheekadiisii haye waxa dhacday marka ninkii odaygiiba u tegey wuu salaamay haye ay waran fiican kabacdi wuxuu yidhi qubuurtaasaan soo marayoo aygaas qabrigiisaan soo maray sheeko cajiibuu leeyaha la yidhi adaa kaa laysoo tilmaamay waxaa la yidhi isagaa yaqaane ee bar iga waran aygan sheekadiisu maxay ahayd cajiib soo maaha waxaa dhacday marka odaygaa marka sheekadii bilaabay wuxuu yidhi waxaa jira nin boqor ah wuxuu boqorkani jeclaan jiray inuu mar walba banaanka u baxo oo ugaarsi aado beeraha iyo meelaha kaymaha iyo baadiyaha inuu aad u jeclaan jiray boqorkani oo soo ugaarsado ugaar u raadsado maalmaha ka mid a marka wuxuu lahaan jiray ay uu kaxaysto ay uu kaxaysto lahaan jiray oo waardiyeeya oo ugaarta usoo qabta oo uu caawiya ayuu lahaan jiray waxaa dhacday marka aygani marka aad buu u jeclaa maalmaha ka mid a marka boqorkii baa baxay wuxuu aaday ugaarsigii buu aaday intuu ugaarta ku maqnaa oo wax soo ugaarsanayay ayuu ninkii cuntada u samayn jiray wuxuu ku yidhi qada iisii samay waxaan raadsanayaa ugaarsi meelahaasaan soo wareegayaay markaasuu wuxuu u sameeyey cunto macaan oo aad u qurux badan oo dhadhan leh oo caraf leh oo kaale iska arag u sameeyey waxaa dhacday marka ninkii oo cuntada sameeyey wuxuu ilaaway inuu cuntadii daboolo ayuu ilaaway muxuu ilaaway cuntadii inuu daboolo ilaaway waxaa dhacday marka cuntadii afla ayaa waxa timi abeesaa timi abeesadii baa waxay marka ku shubtay cuntadii sunteeda ku shubtay marka cuntada waa sumaysan tahay soo ma qof ku dhawaada wuu dhimanayaa soo saas maa kabacdi marka abeesadii markii suntii ku shubtay cuntadii waxaa marka arkayay aygii boqorku lahaaba arkayay in ay abeesadu ku shubtay sun iyo gabar aan hadlin qof dadka oo aan hadlin oo hadli karin inta hadhowdii miyay sharxi kartaa inay marka labada kaliya arkayay cid kaloo arkaysay in abeesadu suntii ku shubtay cuntada ma jirin marka intaa un baa joogtay ninkii sameeyey intuu waaba ilaawayba maba daban uu ka tegay hadhowdii baa marka boqorkii waa soo noqday wuxuu yidhi cuntadii macaaneyd ee udgooneed carafta badnayd aa ii diyaarisay ii keen markii cuntadii loo keenay gabadhii aan hadli karin si kasta waa yeeshay inay u sharaxdo oo fahansiiso in cuntadan isu leedahay si kasta waa yeeshay laakiin waa fahmi waaye wuu fahmi waaye aygii wuxuu bilaabay inuu qayliyo oo orduu bilaabay isagiina de miyuu hadli karaa isagiina qayli buu leeyahay qayli wuu ordayaa wuxuu rabaa inuu fahansiiyo laakiin dama miyuu fahmaa markuu arkay gabadhii la fahmi waayey aygiina la fahmi waayey oo boqorkii dama cuntada inuu soo qaato inuu cuno ayaa wax la cabaayay ahaa oo shay la cabaayay shurbad ama wax la cabaayay ahaa ma fahanteen boqorkii markuu damcay inuu cabo oo soo qaaday baa aygii hal mar intuu soo booday caanihii cabay ama shayga cuntadii la diyaariyay cabay isla markii naftaa ka baxday wuu soo baday muxuu cabay caanihii markuu saa u ka baday waba dhintayba boqorkii markaasuu fahmay wuxuu aygu la qaylinayay gabadhuna ay maanta dhasaa lahayd inay u sheegayeen in ay sumaysan tahay cuntadani waxa dhacday marka gabadhiiba wuxuu ku yidhi cuntadu ma sumaysanin markaasay tiri ha
aygu waaba dhintay isagii markaasuu su-aal weydiiyey boqorkii wuxuu yidhi dadkii la fadhiyey aygan qof ka ballan oofin badan ma aragteen markaasaa la yimaaya suu yani daacad ugu ahaa isagii baa dhintay aygii baa dhintay suusan boqorku u dhiman soo ma aragtaan horta markaasuu yidhi qof ka oofin badan wuxuu ballan qaaday inuu boqorka u shaqeeyo daacad u noqdo waxa xun ka celiyo u waardiyeeyo soo saas ma ahino markaasay dheheen maya markaasuu yidhi aygan horta waa inaanba sharfo oo aaso oo aan asturo markaas aygii marka qisadu wuxuu lahaa waxay ahayd wuxuu ahaa aygii ugu oofinta badnaa wax ilaahay abuuray subxaana wa tacaala soo ma jeedaan qisada marka maxaan ka faa'iideynaa marka u horeysa dadka walaalaha waa inay soo booqdaan soo saas maaha ninkay sheekadan ogaaday tuulada markuu aaday rag buu soo booqanayay soo saas ma ahayn sidoo kale maxaan ka baranaynaa in haddaad qabuur soo martid aa u ducaysid in ilaah u dambi dhaafo ila ninka muxuu qabuurta ogaa in u duceeyu rabay soo maaha waxaan kaloo ka baranaynaa in wixii aad ballan qaada oo oofiso ka warrama aygaasi waa iska aamusi karay soo maaha laakiin miyuu aamusay balantii waa oofiyey soo saas maaha su-aal marka ka warrama qofka intuu hooyadiis ballan ka qaado aan oofinayn isaga ayga yaa fiican waa khatar soo ma qofkii ilaahay ballan ka qaada ka warrama oo yidhi salaadaan tukanaya ilaahow qof macaayayo waxa idirta waan samaynaya oo aan oofinayn ka warrama marka wafaagu waa dhaqan aad iyo aad u wanaagsan weeye waxaan kaloo marka iyadana aan qaadanaynaa sheeko kale oo isaguna wafaaga ku saabsan waxaa jiray faras kii hore muxuu ku saabsanaa ay waxaa jiray faraskani waxa iska lahaa nin doob ah oo meel deganaa ninkan waxaa la dhihi jiray zactar waxaa la dhihi jiray magaciisa zactar marka wuxuu samayn jiray meel baadiya ayuu khaymad ku lahaa oo teendho uga dhisnayd faras buu lahaa farasku aad u jeclaa ninkan zactara faraska aad buu u jecel yahay wuu xanaaneeyaa cuntuu u keenaa biyuu u keenaa marmar xataa waxaa laga yaabaa su cuntada ugu macaaniyo inuu sukor ugu daro faraskii soma jeedaano su u jecel yahay aad buu xanaaneeyaa aad buu xanaaneeyaa maalin maalmaa ka mida marka maaragtay ayaa waxaa dhacday zactar baa xanuunsaday ninkii zactar ahaa wuu xanuunsaday guriguu jiifsaday faraskii aad buu u murugooday ila ninkii dhammaa ee dhaqaalayn jiray ee xanaanayn jiray ninkii dhammaa ee xanaanayn jiray baa ka xanuunsaday soo saas maaha faraskii waa murugooday aad iyo aad buu u murugooday cuntadii buu cuni waayey qofku markuu murugaysan cunto miyuu cuni karaa markii murug hayso cunto ma cuni karaa qof faraxsan baa cuna marka gaajo ma ku qabanay adigoo iska murugaysan tahayba maxaa dhacday marka ninkii faraskii aad buu u murugooday cuntadii waa ka tegey wuxuu intaa hor taagan yahay albaabkii gurigu ninku deganaa albaabkiisu hor taagan yahay intaas faraskii sidaasuu u taagnaa ayaa ninkii zactaraa dhintay yaa dhintay zactar wuu dhintay kabacdi dadkii baa u yimi waxay bilaabeen inay dhaqaan oo qofka markuu dhinto waa la dhaqaa waa la aasaa sooma waa la kafmaa markay u yimaadeen oo dhaqeen oo kafmeen oo ku tukadeen ayay qaadeen janaasadii wax rabaa in la soo aaso faraskii markuu soo dabagalay wuu fahmayaa qofka la sido inuu yahay zactar soo dabagalay wuxuu u jeedaa in janaasadii naxashkii laga soo dejiyey oo qabriga la gelinaya u jeedaa markii uu arkay in la geliyey ayuu maarasa u fiiriyey macnaa waa aragti sagootin iyo macasalaameyn oo murug ka muuqato qofaa jecladoo kaa dhintay dee soo ma jeedaano saa u fiiriyey saasuu u fiiriyey kabacdi waa markii u dambeysay uu arko soo maaha dadkii markay ka soo dareereen oo ciiddii lagu rogo laga soo yaacay qabrigii ayaa faraskii wax allaali wax awood lahaa buu hal mar intuu isticmaalay buu orday suu ordaay wuxuu koray buurtii ugu dheer dhaladeedu koray dalkaasuu istaagay markuu istaagay buu iska soo tuuray
سجن محمود سمي واضح معناها هذا قفك جعله ويديه نلبا كور حيوان كاس وجعله معناه إلا إن حيوان كان إلا يسدله ما بنانا ما فهمتين إلا يسدله إيه ما بنانا إيه واحد كودنا ما تقانا فرس كاس محو إلا وكرواي جعيلك ينكي حنانين جريب إلا وكرواي وحي مركا خلاص محادنا ونولاني سا حيواناتكم مركا قفك قلنا حريسته ويقانين قفك عنتسي ويقانين قفك بيسي ويقانين بصدق واحد جري ninkaas waxa laga yaabaa inuu saajana ku galo xujana ku galaya inuu faraskaas una xariistay qisada kale maxay ahayd islaan maxay guri maxay ku xirtay islaani bisad soo saas ma ahayn cuntadii u diiday biyay u diiday ilaa ay dhimatay maxaa dhacday marka naar bigash soo saas ma ahayno macna wakaas marka inuu ka warramo marka inuu riyaha iyo dhagxinayna ka warrama inaynu maanta dhan maaragtay aynu bisadii aan biya u diidayno aynu ku xasan ka warrama marka maxaan u baahanahay in aynu u naxariisano maxaan u naxariisanayna xayawaanaadka u naxariisano inayna dhibin inayna dhagax ku tuurin inayna dilin inayna waxba ku soo inayna cayrsan inayna eriyoon soo jeedano arrinta yarka daarto iyagu maanta dhan quraanjadii dilay inaad ka celisid soo ma dhacdo marmar waxa soo dhan maaragtay in la ixtiraamo oo loo naxariisto qisadaas isagana aynu ka faa'iidnay waxa kala jiray iyaduna qisa cajiiba qisadan iyaduna waxay ku saabsan tahay wafaaga ama ballan oofinta ayga waxa jiray nin muxuu sameyn jiray ninkaasi wuxuu lahaa meel uu hilibka ku gado hilib uu gadi jiray wuxuu arkay ay u yimi oo qoorta waxa ugu suran waxba qoorta ugu jira xarig iyo shay ku xiran ba qoorta ugu jira dhowr jeeru eriya ee waa soo noqonaa uu eriya uu soo noqonaa markii dambe ayuu qabtay oo wuxuu ka furay soo marka warqad ku qornayd waxa ii soo dhigtaa kiilo hiliba lacagtina waa meesha kugu jirta nin baa soo dirsaday macna aygan tuma jeedano uu ka furay kiiladu u miisaamay xaga u galiyay qoorti markaasuu ninkii wuxuu yiri aygan waa inaan raaco qofkii lahaa aan soo ogaado وصو دبا galay marka ay soo socda ilaa uu guriga laga soo diray uu yimi wuxuu dhahayaa Soomaha lugtu ku dhufanay albaabka wala laga furi waayay ka baacdi wuxuu u soo booday daaqada inuu maaragtay yani uu dareensiyo qofka gudaha ku jiray inuu ku dhahaya si albaabka looga furo nin xoog weyn baa ka soo baxay gurigii oo marka ay intuu ka qaaday maaragtay alaabtu waday buu ay iyo dil iyo isku daray ninkii ayaa wuxuu yiri aygani waaba wuxuu balanta buu ku oofiyay cuntadii buu ku raadiyay muxuu mudnaa mise in la cayo oo la eriyo oo lagu qayliyo kaasoo qaylinaya wuxuu leeyahay marka qisada marka maxaan ka faa'iideynaa waxa jira dad badan oo wanaag ku sameynaya oo aadan ogeyn aad ku qaylinaysid يعني مثلا gabadha guriga joogta hadii gabar inay shaqeyso مثلا oo kale waxa maanta inay jikada ku jiro ku shaqeynaysay ka waran cuntada dad markii cuntada sameyso dhaadar waxa ma rabno aad ku daadayso ka war miyay mudan tahay ka waran hadii hooya maanta dharka ku dhaqaysay markaas hal maalin ma dhihin hooyo ma hadsan tahay dharka markaan wasakheeyo inoo dhaqa hooyo marka alaabta biino wax dhan isku dhax qasno yaa dhaqa hal maalin ayaa yiri hooyo aad ba u maasan tahay inta maalin dharkii dhan oo dhaqan oo xariga ku waran inta aragtay yaa yiri hooyo aad ba u maasan tahay ya gacantaaga yiri ma sha Allah tuma jadaan horta hadda waa lamid hadda fiir waxa la yaabteen Soomaa aygaas dhan ee cuntada u soo qaaday ninkaas oo ku qayliyay soo labadan yaabin qofka bini'aadan ka warrama ku shaqeynaya أنا واحد ربع واحد أنا لبر بارتان بري مكان نقطان هذا بري تاجر نقطان كان عصام نقطان صوليني شقين مايو شقالي سو جليسان شغلنا نكون شقين هاي هذه مثلا أبو كلا وجناع سلية هاي قفك مش كشقي سو لا رقم يسا كو قيل نسا بس أخلاقنا نسا كل رقم يسا مركان واحد أوبهن إنك محر هذين الناس ما ركتانو
dad badan baa jira oo wax badan kuu qabta oo haddana la dhibaayo may adiga saa ha yeelin adiga saas ha yeelin waxaa jiray marka iyaguna saddex wiil oo iyaguna saaxiiba ahaa magaalo ay wada deganaayeen magaalo ayay wada deganaayeen saaxiibe ahaayeen way isjeclaayeen way is-ixtiraami jireen waa weynaadeen mid ka mid a ilaah subxana wa taala lacag uu siiyey labadii kale weli lacag iyo shaqo maysan helin marka ninka lacagta le muxuu caawiyaa labadiisa saaxiibo kaloo caawinayaa waxbuu u qabanayaa wax uga bahdaan wuu siinayaa soo ma jeedaan aad bay marka isku jeclaayeen maalin ka mid a marka labadii kale waxay ku talagaleen inay labadoodu shaqo raadsadaan oo magaaladii ka tagaan saaxiibkood bay u yimaadeen way macasalaameeyeen kii oo lacagta lahaa ay macasalaameeyeen midba meel buu aaday wuxuu shaqo u raadsaday muddo hadday kala maqnaayeen kii lacagta lahaa adiga lacagtii way ka baaba'day wuu kacay maaragtay gaajo badan uu dareemay faamilkiis wuxuu sii waayey yani islaantiisa marka waxay ku tiri haddii aad saaxiibkaa wicila warqad u diri lahayd oo dhihi lahayd niyo xaaladdu maaragtay caadi maaha oo xoogaa jabjari baa jirta waxay soo dir markaasuu yidhi war waa ka xishoonay nin dhan oo aniga caawin jiray inaan maanta dhan waxba ma haysto waan war waa saaxiibka adba waa caawin jirtay adoo aan u lib sheeganayn u abaal sheeganayn waxbaan ku siiye dhahayn baa caawin jirtay marka isaguna ku caawinaya warqad buu u diray warqadda markuu akhriyey isla markiiba wuxuu usoo diray lacagtii markii saa uu u helay oo uu farxay uu yiri maanta maasha Allah cunto macaan hilib baa soo gadanaysaa cunto fiican dharba wala caruurta usoo gadanaysaa isla markii warqad baa u timi saaxiibkiisa kala soo dir uu leeyahay lacag ma haysa lacag soo dir samajeedaan horta ilaa wuxuu warqad ugu soo diray inuu lacag lahabu ku ogaa soo saas ma hayn inuu lacag lahabu ku ogaa oo leen markii kala tagay ninka lacag buu lahaa soo saas ma maxay la tahay inuu sameeynaayo هذا ده ورتنا أنا بيقول يرتاح برس وكذا هرت تصدقها يا ما سمين دونا واحد عادي وسميه فيريا إسلامتي سوفيريا لا تشهد بحيثري ودري سجا العقد يوم أحبك استعمالا بساعدك ودرين كاور واحد عاد markay ninkii lacagta u tagtay Soomaha kii kale lacagta soo diray ba isar ruuxiisa bisaarad ku dhacday saaxiibkiisi kale ilaa kan uma soo dirsan karo saad lacag u soo diray Soomaha ma lacag soo dir buu dhihi karaa kii kale buu la hadlay muxuu ku yiri niyo xogaa maaragtay bisaarad iyo baa jirta lacag yari lacag ii soo dir oo markii lacagtii gaartay muxuu soo diray isaguna nafsi lacagtii u soo diray lacagtii ku noqotay marka kii markii hore صدر يكون نقطة صومة هو يعني مركب وقرأ وفهم يا موقت كيس كحر ندي وحيك وحيك وفهم يا صومة هل كي بكسر التجي وبصوت قاقبة نكى كو صدر بقيمة نكى كلنا وصوت التجي ماشي سكوي مادن العكس صهر دجان يعني واحد رمي سيد دعاد سوقها عيان سمارة نرتا سيسوقون حريصنا عيان markaasay maaragtay mid walba mid kale uu macaanaqeeyay oo u mahad celiyay oo ay wada qaybsadeen wada cuneen marka wada qaybsadeen marka ilaahay lacag badan buu siiyay ma sha Allah marka qisooyinka maxaa ka faa'iideynaa qisooyinka ka kooban yihiin samartano maxaa ka faa'iideynaa iyadana saaxiibka fiicani ma midka marka lacag haysato hooyo lacag yar ka soo qaadato ma intaas kula socda hadhow marka lacag weydana ka tagay miya saaxiibkaas ma saaxiibka mukhliska oo daacada waa midka haddii ajrantay aan kaa tegin haddii dhib ku qabsato aan kaa cararin haddii dabcan lagu dilo aan kaa cararin waa ka saaxiibka laakiin ka war mid oo kaa dhuumanayaba markuu haysto markuu dhibaataysan kale ku imaana ka waran ma saaxiib baa kaas ka saaxiib ma ka saaxiibka dhabta ah waa sidaas waxaa jirta marka iyaguna saddex saaxiib ahaa ay iyo danyeer iyo jeer saaxiibbay ahaayeen kayn bay ku noolaayeen maxay saddex marka samayn jireen saddexaas waxay samayn jireen marka way is caawin jireen cuntay meelkooda cuni jireen danyeerku inta badan moos ku cunaa
soma jeedano aygana lafaha iyo hilib waxa soo cunaa soma jeertuna cawska cuntaa marka wuxuu sameeynaa marka hadduu aygu meelaha maraayo muus soo arko oo u keenayo u keenaya saaxiibkiisa daanyeerkii daanyeerku hadduu laf meelaha ku arko u soo qaadayo u keenaya aygi jeertu aad bay u weynta culus tahay marka labadooduba ayga iyo daanyeerka labaduba caws bay u soo guri jireen iyo maaragtay cagaarka iyo dhirta waxay u soo guri jireen jeerti markaas markay yimaadaan wada qoslayaan faraxsan yihiin wada cayaarayaan iyagu marka maalin cuntadii wada cunaya baa halkaa waxaa ka soo galay libaax kaajeesan oo hinraagaya dhahaya markaasaa daanyeerkii baa arkay markaas allah ya allah libaaxii oo gaajaysanaa keyntan ka soo booday maanta mid buu ku quraacan doonaa innagana ka mid ah hal mar daanyeerkii intuu booday buu geedka dhaladiisa u booday aygiina big wuu cararay jeerta ma u dhaqaaqi karto waa culusta jeerta hareeraha fiirisay mise keligeed baa meeshii ku hartay libaaxiina soo malabsana waa kan indhuhu guduudina waa cabsi gelinaya yani waa waqti inay cabsato jeerta waxay bilowday inay iyadana xog isticmaasho isdifaacdo marka aygu waxaa libaax cabsi gelinaya hareeru ka imaana intuu ka imaana wuxuu rabaa inuu inay u cabsato hal mar inta ku dhow dhab siiyo libaax moogta meesha waxay ku dhigaa xayawaanka markuu rabo inuu dilo intuu ku dhigaa taas oo hayna ilaa naftu marka idiina iska celin saas ilaada iska wuxuu arkay daanyeerkii kor buu ka fiirinayaa wuxuu yiri allah saaxiibkiin maanta dhamaatay markaasuu ma soo boodaa soo hadda maxaba adigu intuu ku cuno iyadana cunaya maxaa ka qaban kartaa waa yaabay ay halku taagay ruuxu waa yaaban yahay wuxuu leeyahay maxaa samaysaa daanyeerka wuxuu arkay marka jeertu cabsatay oo xayar inuu libaaxu ku boodo kaliya u harsan tahay markaasuu go'aan ku gaaray daanyeerku wuxuu go'aan ku gaaray wax kasta ha dhiceen wayna soo boodid waayo saaxiibka la cunay ma daawan kartaa la dilay ma daawan kartaa intuu hal mar buu u soo booday hal mar daanyeerkii libaax markuu arkay daanyeerka isagii uu ku jeensay soma waa booda wuxuu mashquuliyay samarta aygiina wuu soo orday intuu libaax soo wuu carabik samartid waxay bilaabeen labadooda inay mashquuliyaan libaaxi jeerta maxay sameeyeen marka way carartay intii mashquulay dhan bay laba loo ka dustay markay arkeen inay jeertii fogaato laba loo ku dustay bayagi aygina big buu yiri daanyeerkiina مش بود عيل لباحي مد ما هلي سما سوق عيل هراغايو halka aska maray haduu marka ay libaaxi carab tagay ay soo noqday iyaga qoslaya soo jeedaan horta iyaga farxsan marka saaxiibada kuwa saxda ah oo isku oofiya oofinta ka haleynay inaad oofiso saaxiibtinimada dhabta ila oofiso sax soo ma ya maxaa yeelay hadaan saaxiibtinimada dhabta aadan oofin saaxiib ma tihid soo saas maaha haddii ka carleen ka waran soo jarta ma cuneen marka wakaas oofinta balanta la oofiyo wataas soo ma aragtaan sidoo kale qiso kale iyaduna oofinta xagga deynta ah nin baa wuxuu u baahday deyn buu u baahday muxuu u baahday deyntu marka u baahday nin buu u tegay wuxuu inuu deyn isii markaas wuxuu ku yiri وهديا مرخانتي كس إله مرخانتي وكره عليه كنا قضي يا وكيل كون قنايا وبري هذا العقد يسين ويدا أو العقد يقسم كرا إله ويد هذا إله مرخانتي كدقتي وإله وكيل كدقتي رالي من كاهب ويري دينتي بسي وحلاب الله مي بيش صوص عطا ما أنت النوع عصو كلا حلي النوع عصو بولو بالله marka ninkan marka wuxuu deganaa meesha magaalada webi amri jiray webiga dhankiisa kale deganaa kan deynta qaatay ka deynta laga qaatana webiga dhankiisa kale balantii markii la gaaray
بونيكي دي لعقتي سو قاضي سو نيكي كلا حاجه كله كسغيا وحو يري خليغاس inoo bala inaad deyntaada ku keen lacagtada ku keen Soma maxaa dhacday marka ninkii marka xiligi markii la gaaray lacagtii soo qaaday wuxuu waayay doon u raaco dhan kale u raaco ama laash wuxuu raaco waayay haye wuxuu sameeyay marka ninkii kale waa soo xag kale ku sugaya cabaar markuu sugay waqtigii la gaaray ayuu wuxuu soo qaatay meel intuu ka raadi alwaax buu soo qaatay wuu kala dilaaciyay lacagtii buu dhex galiyay warqadna waa dhex galiyay wuxuu ku yiri ilaahayow ninkaas markaa deynta ka qaadanayay markhaanti buu weydiiyay markaasaa ilaah baa markhaanti ka bacdi wuxuu weydiiyay wakiil ku markaasaa ilaah baa wakiil iga oo kafiil iga bixinaya xilligii balantu waa ku imi laakiin maxaan waayay buu yiri doontaan raaci lahaa ilaahayow lacagtaas iga gud oo iga geey ninkii laa u geey intuu alwaaxi ku riday lacagtii xiray oo badda ku riday wabigi ninka dhan kale ku sugaya Soomaha ma cabaar buu sugay wax doon timi ma jirto markuu daalay buu arkay alwaax badda soo caariday ama biyuhu soo tuureen oo yaala meesha markaasuu alwaaxaas ka sii qaado caruurtaada cunto uu karso iska soo tagay maxaa dhacday marka ninkii markuu gurigiisa la yimi alwaaxi muxuu ku sameeyay uu jajabiyay soo axaabo uga dhigto markuu jabinay maxaa ka soo baxay lacagta ka soo dhacday ka warrama lacagta buu la baxay wuu fahmay ninkii inuu soo dhiibay hadhowdii ninkii inta kale kuma ekaan maalin dambu soo noqday soo lacagtii wada oo doon soo raacay oo ninkii u yimi nin raaliga ahaw maalinta balanta waan imi laakiin doon baan waayay lacagtada waa tan kaasuniyo wax miya ay soo dhiibtay ma uu yiran maxaan markuu ku riday miyuu ogaa inay gaarayso kaasii lacagta ilaahay baa ka bixiyay lacagtaas dama cisho qisadaas nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa saxaabada uga sheekeeyay qisadan dambe wuxuuna baraayay in qofku diideen lagu leeyahay uu oofiyo wali waxaan dhexda ugu jirnaa sheekooyinkeena adar cajab waxaan filayaa maanta inaynu qaadanay akhlaaq kamida akhlaaqda qofka muslimka oo maxay ahayd hal ma aan dhahno akhlaaqdan qaadan maxaa weeye alwafa hal ma aan dhahno alwafa oo in aad balanta oofisid qof hadaa wax ka balan qaado aad qof hadaa deen ka qaadato aad waka ilaahay wuxuu kugu balan inaad marka insha Allah waxaan rajayn doonaa inaynu akhlaaqdan aynu ku dhaqmi doono haddii rabbi ma insha Allah daawadayaal intaas waxaan ku soo afmeeraynaa xalaqadeennii aanu kaga hadlaynay akhlaaqda oo maanta aynu soo qaadanay khuluqa ama dhaqanka wafaaga iyo oofinta qofku wuxuu ballan qaaday intaynu xalaqo kale ku wada kulmi doono waa bahdii sheekooyinka Adar Cajab oo inay kaga tagaysa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh